wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Marwe Hinde Gaani oo shalay toole ku soo dhaweysay magaalada dhigeeda dalka Djibouti ayaa maanta waxa ay si wada jira kulamo gaara ula yeesheen wasiirada arrimaha gudaha iyo waxbarashada oo ay wada shaqayn leeyihiin. kulamadaasi ayaa waxa ay ahaayeen qaar la isku xog wareysanayay isla markaana ay labada dhinacba kaga wada hadlayeen sidii loo xoojin lahaa xiriirka u dhaxeeya Somaliland iyo sidoo kale dalka Djibouti. aad baan idin soo dhaweynayaa aad baan ugu faraxsanahay inaad halkan noogu timaadeen Somaliland soo booqateen waan idin soo dhaweynaynaa aniguna gaar ahaan waan idinku soo dhaweynayaa maanta wasaaradda arrimaha gudaha madaxdeeda iyo mas'uuliyiinteeda iyo shaqaalaheeda dalkiinii labaad baa joogtaan halkan qariib kuma tihidin anagu markaan Djibouti tagnana dalka iyagii labaad baan joognaayo qariib kuma nihin halkan waa wasaaradda arrimaha gudaha waxay mas'uul ka tahay ahaan amniga dalka ay mas'uul ka tahay amniga gudaha dalka sida idinku badda ay u leedahay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka ayaa inta hore tacsida u yimid baan halkan isku aragnay halkan xafiisku ugu yimid aan ku soo dhaweynay si fiican baan u sheekaysanay wasaaradda waxa hoos yimaada oo ay maamushaan ciidanka booliiska ciidanka immigrationka oo laan gaara ah waanu anagu nidhaahno ciidanka socdaalka ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland Coast Guard intaasay waxaan ku dhahdaa maamusha waxa ay iskarabsadaan oo ay si fiican u wada shaqeeyaan wasaaradda gaashaandhigga iyaduna xukunta iyo ciidanka dabdamiska inta badan waxaan dal la shaqeynaa dowladaha majaarka naqay sida dowladda Djibouti iyo dowladda Ethiopia waxaan ka wada shaqeynaa arrimaha xuduudda iyo amniga waayo haddii aan amni jirin dowladnimo ma jirto marka waan iska garabsanaa dadkan dambiyada gala ee xadadka isaga talaaba waxaan ka wada shaqeynaa hawlaha aan isleenahay tuhun baa ku jira ama xoogaa laga shakisan yahay dadkan maxaan ku dhahdaa muslimka la inala sheeganaya haddana muslimka leenaya muslimka qarxinaya ayaan ka wada shaqeynaa Somaliland arrinta aad iyo aad baan uga fiicannahay dhowrkii usbuucii markii u dambeeyay dad badan baan qabqabanay wasiirka iyaga Hindana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa soo marti qaaday halkan aad isugu timaadeen xaaladda waxaanu u baahannahay inaynu isgarabsano oo ka wada shaqeyno waxyaalaha danta oo ah labadeena bulsho xagga xoogga nabadgelyada saarno inaynu maxaan ku dhahdaa iska kaashano xoogaa idinku dowladda aqoonsan yahay baana tihiinay inaynu xaggan arrimaha bulshada waxyaalaha khuseeya inaynu falugad qabanno iska kaashano horraanta sidaad noogu soo dhaweyseen wasiir waad ku mahad qabtaa mas'uuliyiinta meesha wada joogta iyo walaashay Hind iyo labada safiir la socda waan u mahad celinayaa iyaga socodkan diyaariyay waqtigaaga qaaligaan nasiisina waan ku mahadsan tahay anigu waxaan doonayaa inaan ku yar sheego inay Hargeysa maanta ugu horeynin Hargeysa waa meel aan ka shaqeeyay Hargeysa waa waddankeygii waa dadkeygii kolkaan tacliintii jaamacadda dhameeyay shaqada Djibouti iyo Hargeysa aan ka bilaabay hay'adaha la shaqeynayay Handicap International ilaahay baa qoray inaan 17 sanadood dabadeed inaan imaado wax badan baa ku birmay
xalay kolkay walaashay hoteelkii iga bixiso maali geenaysay xafladii geenaysay waxaan idhi anigu kolkaan xaggan ka shaqaynayay dariiqa triig muu oolin jirin habeenka maqrib dabadeed lama bixi jirin waa ka maantana gaariye loo dhex socda ma hadda ilaahay baa leh ma hadda waxaa leh mas-uuliyiinta waddankan ka mas-uula iyo ininka iyo shacibkii ku dhex nool sidaad waddankiina u qurxiseen aada u dhisteen aada meeshaa gaarsiiseen taa horaanta waxaan qof kastoo Somaliland aan arkaba intaa waan u sheegay intaa yaraan arkay kolka wax fiican lagu sheego moraalkaaga ku dhisma xoog waad saartaa dadaalkana waad saartaa sidaad horumar u gaadhid taa waa wax fiican horta aad baan isku soo dhaweynayaa diyaar baan u nahay haddii aad sii joogtaan dee hawlo kale aynu wada qabnayn meelo kale wada booqano aanu idgeeno marka dambana annaguna aanu Djibouti ku nimaadno كل جبوتي وضل دسان إلا أمريكا أي حرية قاعدتي أو أن سيد سوالف كنا عند بكرة عند إلهي لما تصو لبعض منا يديو ذكربا مركا infrastructure كي بعد كل أنت سولي زمالين بحبا كبيرة مركا توحي عين سوتر كرنا يوحي نسودرسن كرنا بين سودرسن دون هدي لهاي لحظة وزير هرانت أنت حضرك بلابين وحندونا إن كايرادو وقت قالية وقت جاء قالية النسيسي وتكون مع صنطاي هذه يوم مسؤولين توزارة حق الجوكتة طلع بعد وحندونا يا إن مهدو عليو ولا شيء هند يو لبدا السفيرة ضد شقدن جلي إلهي لقبتي بندقة ضد النجو وزارة هواك يو وزارة التعليم تحوج أنت باصرنا بريجي هراي وحل سوري إنه شن سنوات جارو إسكال كل قرى برجي فرانسيسكو waxay 7 sanadood kolkan xuriyadii gaarnay waxaan tagnay 6 sanadood baan ka dhignay maanta waxaan ka dhignay inuu ilmaha 5 sanadood kor gaaro waa inuu iskoolka uu tago uu la qoro oo iskoolku waajib ku yahay ilaa 16 jir inuu iskoolka tago iskoolku waa bilaash min 5 jir ilaa 16 jir ilma kasta ilaa 16 jir waa inuu iskoolku wax ku bartaa hadduu marka dambe doono inuu ka baxo uu diidana xor buu leeyahay laakiin ilaa 16 jir siyaasadda Djibouti iyo istaraatiijiga Djibouti iyo xeerka Djibouti waa ilaa 16 jir min 5 jir ilaa 16 jir waa inuu iskoolku dhigtaa iskoolkuna waa bilaash intaas kadibna wasiirihiin degan oo iyadu soo martay qaaday wafdigan ay hogaaminayso dhigeeda dalka Djibouti Marwa Muumina ayaa waxa ay soo kormeereen xarumaha lagu xanaaneeyo ubadka agoonta kuwaasi oo ay gacanta ku hayso wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada waxaana soo indheeyeen goobaha lagu hayo iyo sidoo kale sida loo ilaaliyo daryeelkooda kulamadaasi markii ay soo dhamaadeen kadib wasiirka shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Marwa Hindegani ayaa harimo sharafeed u sameysay wafdiga ay hogaaminaysay dhigeeda dalka Djibouti Marwa Muumina xamid waxaana harimo sharafeedkaasi wasiiradda ku wehelinayay xubno ka tirsan golaha wasiirada safiirka u fadhiya Soomaaliland dalka Djibouti agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo marti kale markii uu harimo sharafeedkaasi dhamaadayna waxa warbaahinta la hadashay Marwa Hindegani wasiirka shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland oo iyadu u fidisay martiqaadkan dhigeeda dalka Djibouti waxaana wasiirhinda sheegtay inay tani tahay mid ka mid ah xiriiradii soo jireenka ah ee u dhaxeeyay dalka Djibouti waxaana sheegtay ujeedada martiqaadkan inay tahay sidii Soomaaliland iyo dalka Djibouti xiriirkoodu kor ugu sii qaadmi lahaa bismillahir rahmanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وزيرك حوينك إيو قويسك الدولة جيبوتي مروة مؤمنة محمد حسن إيو وفتي دي أيه قامين إيسو أمباسطرك أوفر ليدلك جيبوتي دولة سومالي لان بعد الصحافة دا لما أنتي وحندكم سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan runtii farxad ii ah maanta in uu ku soo gabagaboobo safarkii walaashay qaybtiisii hore hotel Damal oo ay ka jirtay harimo sharafeed isbarida wasiirada intii jaanisku noo saamixi waayay inay safarkeeda ku marto oo runtii wasiiradii ugu muhiimsanaa arrimaha bulshada la shaqaynteeda ahaa ayaa maanta ظهورنمدي ما أنت نوجسو جبجبوبي هوتيل دمل الحمد لله
wasiir muumini waxay timid dalka shalay oo ay bishu ahayd 12 bisha February 2020 wuxuu ahaa ujeedada socdaalkeedu marka laga reebo martiqaadka wasiirka dhigeeda ah ee Somaliland in ay isbarasho maadaama oo ay arrimaha bulshada haweenka iyo qoyskuba ay ka kooban yihiin in aanu isu furno xiriirka labada bulsho sidii uu wanaagsanaan lahaa sidoo kale aanu kala kororsanno wixii labada wadan ee anfacaya ee dhanka haweenka qoyska iyo caruurtaba ah aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa balaasha iyo waftideeda runtii safarkoodan qiimaha badan wuxuu daaranaa jawaabtii safarkii aan ku tegay 2019 dalka Djibouti oo ay Marwo Muumino wasiirka haweenka iyo qoyska weeyaan iyadu igu soo marti qaaday si aan wax uga barto shuruucda iyo arrimaha bulshada haweenka iyo xuquuqaha qoyska ee dalka Djibouti tanina waxa weeyaan inay wax ka ogaato jamhuuriyadda Somaliland iyo waxa intaa quseeya haddii idamka Ilaahay ka dhigo way inala sii joogi doontaa haddii Allahu yiraahdo kulamada iyo isbarashaduna way inoo sii socon doonaan ilaa inta laga gaarayo berrito oo ay 4 barka dhabaha garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ay ka dhoofi doonto aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh Abdulqaadir Code Hoon Cable TV Hargeysa